haddii aad tahay maamulaha amba mulkiilaha shirkad cayiman, waxaa biyo kama dhibcaan ah in aad u dadaalayso oo aad geed dheer iyo mid gaabanba u korayso sidii aad u horumarin lahayd ganacsigaaga amba shirkadaadaas. Laakiin waxa ay tahay inaad isweydiiso waa maxay mustaqbalka aad u rajaynayso mashruucaagaas amba shirkadaadaas, iyo sidee baad u hirgelin kartaa. Haddaba waxa aad ku qasban tahay inaad ogaato xagga aad joogto imika, iyo xagga aad u socoto, iyo sida aad u socotoba. Haddaba waxaasoo idil waxay u baahan yihiin inaad aqoon dhammaystiran u lahaato awooddaada iyo waxaad qaban karto. Qorshaynta wanaagsan waxaa lagu tiriyaa waxyaabaha ugu wanaagsan ee u keena guusha. Shirkado ku dhawaaday in ay baaba'aan oo ay badbaadiyaan qaar ka mid ah maamulayaasha caqliga badan, iyaga oo u dejiyay mashaariicdoodii qorshayaal sax ah oo ku habboon. Haddaba mowduuceenan maanta waxaynu kaga hadli doonaa 2 qodob oo aad u muhiim ah oo ka hadlaya sida aad wax u qorshayn lahayd oo aad naftaada qorshe ugu samayn lahayd. Qodobka koowaad waxaynu kaga hadli doonaa maxaynu uga baahannahay inaynu qorshayno nolosheena, se maxay naga anfacayaan qorshayaashaasi. Qodobka labaadna waxaynu kaga hadli doonaa sidee baad qorshahaaga u fulin lahayd adiga oo aan ka leexleexanayn. Haddaba qodobka koowaad haddaynu guda galno, marka koowaad waxaad awood u yeelanaysaa inaad xadiddo hadafkaaga, isla markaana aad ogaan karto mustaqbalkaaga iyo xagga aad u jihaysan tahay. In aad ka faa'iidaysato jaaniska iyo fursadaha ku soo maraya, in aad si yaroo fudud u kala saari karto waxyaabaha kuu muhiimka ah ee aad u baahan tahay iyo waxyaabaha kale noloshaada ku dheeriga ah. In aad la imato asbaabta oo aad ilaahayna tala saarato subxaanahu wa tacaala. In aad ujeedooyinkaaga meel ku qorato oo ay kuu liiskarisnaadaan waxa ay ku siinaysaa dhiirigelin. Iyo in aad ku kalsoonaato naftaada oo aad dareento inaad wax qabsan karto. In aad ku tala gasho dhibaatooyinka iyo cawaaqibta kaa hor imanaysa, isla markaana aad u sii diyaargarowdo. In aad qorshe yeelataa waxa ay kaa caawinaysaa in aad u kala horreysiiso ahdaafta iyo higsiyada aad leedahay hadba sida ay u kala muhiimsan yihiin. Waxa kale oo kuu badbaadaya waqti aad u badan oo bilo iyo sanadaba gaadhaya, kaasoo ay noloshaada isku dhex laqnaan lahayd haddii aad bila qorshe aad tahay. In aad qorshe yeelataa waxa kale oo ay kaa caawinaysaa inaad waqtigaaga sida ugu wanaagsan uga faa'iidaysato. Qodobka labaad ee ah sidee baad u fulin kartaa qorshayaashaadana haddaynu nimaadno. Marka koowaad waxaa lagaaga baahan yahay inaad ku kalsoonaato qorshaha aad dejisatay. Waxa kaloo aad u baahan tahay inaad isweydiiso caqabadaha kaa hor iman kara iyo hadday kaa hor imaadaanba sidaad u xalin lahayd. In marka hore aad qorayso qorshayaashaada ee aad diyaarinayso wax real ah aad qorto, ee aanad wax khayaal oo aad maskaxda ka keentay aanad iska qorin. In aad mar walba joogtayso oo aanad maalinna ka tegin, iyo in aad la tashato dadka ay noloshooda qorshaysan tahay ee hore u qorsheeyay si aad uga faa'iido khibradooda qorshayneed. Waayahay mowduuceena maanta intaasuu ka eegyahay. Tan iyo inta muuqaal dambe ku kulmi doona waxaan kaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.